أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. وأنا سلامة يا برشة يقول حرنات بردي سلامة يا لما أنتم بق أنت عليكتي سومالي يريا وأنا سلامة. runtii maanta waxaan rabaa inaan ka hadlo safeetismo laba arrimood ay leedahay. mar waa hees ay soo qaaday runtii heestaas iyo gurigeeda la dumiyey labadaba inaan ka hadlaan doonayaa. qoonku hadday noqdaan qoon aan xaq darrada in isugu hiliya wax jira ma noqdaan runtii, laakiin waxaa fiican haddaynu dad islaama nahay oo dad meel ku wada nool nahay wixii xaq darraa inaynu iska ilaalino noqdana qaar ka hadlaana ay jiraan xaqa in war xaqa wixii waa xaq waxna waa xaq waxna waa baadile wixii xaqa aynu ka hadalno. horta mid waa heesta sidii la doono dee bulshada Soomaaliyeed baa say doonto ula kacday. aniga idin la hadlaya markii ugu horreysay aan heestaa daawaday runtii waxaan is idhi tolinanta heesta maxay usoo qaaday xilligan already wax walba way dhammaadeen way guursatay maxaa ku kalifay baan maskaxdayda ka idhi. heestana dadka qaarba sibay u arkaan oo runtii bulshada qofka hal abuurka ahi heesta saxda ah ee qalbi ka timi marka qiso laga sheekeeyo. heesaha qaar waa run oo qisooyin baa laga sameeyey, qaarna waa mana awaal. marka heestu markaan mana awaal ahayn qof kastoo hal abuuri wuu garan karaa. heeso badan oo anigu aan dhageysto waxaan arkaa inay yihiin heeso aan mana awaal ahayn. heeso badan aynu ku baashaalo oo iska jecesho waxay noqonayaan iska wax mana awaal yihiin. marka heestaasi aniga markiiba si gaar ah ay taabatay. waxaan la dareemay inay tahay hees ka timi qalbi qof hadlaya inuu ku jiro. marka dee waan bilaadan baynu nahayo inagu sideennaba Soomaali haddaynu nahay ma aaminsanin qofkan waa hobol oo wuxuu doono qaadi karaa waa fanaan, laakiin waxaynu markii ula kacnaa dhinacaynu nagu doonayno. waxaa jirtay dee sanadkii hore wiil iyada iyo inan reer Hargeysa oo laysku cuna duubay waxna iska dhaceen wax dhex mareen. taasi way dhamaatay, gabadhan way guursatay. heestaasi markay soo baxday Soomaalidu midba meel buu la kacay, laakiin heesta anigu waxaan is idhi tolow iyaniga laftigeegan dee waxaan is tolow inantu heesta inay maanta qaado kuma qurux badnayn, laakiin alxamdulilah inankii heesta sameeyey ayaaba qisadeedii oo dhammaystiran ka sheekeeyey. horta taasaaban ku alxamdulilaystay. runtiina qofku qalbigiisana wuu ka heesi karaa oo wuu ka samayn karaa oo wuu odhan karaa ii samee. qof kale dee qalbigiisana wuu ka heesi karaa mar hadduu fanaan yahay. fanaanka inaga sideennaba wuxuu sameeyo dee inagaa mana awaalano inagaa samaysanaba inagaa layn la raacnaba layn hadduu doono aanu ujeedin xaggaa isagoo socdeen xaggaa qabadsiina. marka heestaan shalay waa laynaga jaahil saaray oo wax mashquul ma laha, laakiin heestaas hees qalbi dhab ah ka timi bay ahayd. runtiina waxaa qurux badan in dadka qofka markaad wax u sheegaysid commentiga dadka qoraya aad baan ula yaabaa. dadkan qof aanad garanaynin horta iyadoo baynu garanaynaa dee maanta qisadeedu way nagu badnaydba, laakiin sideedaba ixtiraam waa inan waa hooyo. qofka xishood iyo ixtiraam buu inaga mudan yahay inaynu ixtiraamno ayuu mudan yahay. xitaa dad wax u sheegaysid si yar wax ugu sheeg oo wanaagsan commentka uga bixi, laakiin cay iyo aflagaada toona meesha mataalo tolow dadka ha caayina. makarooniba waxaan ka aqaana waan hidhisay. marka raalli ahaada oo marka taas heestaas intaasaan ku daynayaa. anaaba islahaa heesu dhiib naftayda ah. taana anaa mar hore waxaan ku fikiray hees inantada naftaada u dhiibo, markaasaan dad hadda naftaada ka heesto hadda qabsanayaan oonayaan nafteeda ka heesaysaa bal u kaada horta inta sheekadu dhammaanayso. marka anigu tusma waa inan cod toolmoon leh, waa inan cod macaan runtii codkeeduna yahay kileer. yacnaha codka safiyo waa hablihii hore codkoodi bay leedahay. waayo codka qofku markuu qof heesi kale uu yahay waad aragtaa. dadka qaar baa dahday doonaya waa cod xuntay, laakiin absolutely inantaas cod bay meesha dhigata. cod bay haysataa biyuur ah oo qalbiga codkeedii ah bay haysataa.
waana ku hambalyeynaya aad baan ugu hambalyeynaya anigu waan jeclaynantaa runtii waa inan muxtarima oo afgaaban oo aan dadka dhacdhaca ahayn inkastay lafteeda musalsal inoo jisho mararka qaarkoodu inaga badiso oo inaga inagu sii waasho dembiga inagu sii badiso iyada dembiga inagu sii badiso mararka qaarkood moogta markaa yeelkeeda inta waan hambalyeynayaa arrinta kale aan ka hadlaya waxa weeye halka heesta ay ka dhan waxaan rabaa inaan arrinta kale ka hadlo gurigeeda la dumiyey horta guriga in la dumiyaa ma xumo wuxuu wariyaal isxaaq madiina xaqdantii war guriga in la horta la dumiyaa maba xumaba runtii anigu waxaan keenantaa in khalad laga galay oo dulmi laga galay ayaan lagu arkaa dulmigan haddii aynaan iska qaban dee inagoo dhan baa dulmiila noqonayna qofna ma jecla waxa la yidhi adigu naftada la jecesha walaalkaan la jeclo qofna ma jecla gurigiisii oo uu kusoo xoog iyo xidaaxid beelay weliba dadka qurbaa ka tagaa xaaraan kuma helaan musuq maasuq kuma helaan been kuma helaan xoogooday maalaan 7 subaxnimaanu guriga ka baxnaa 11 habeennimaanu nimaadnaa sometimes maxaa qabaa guriga intaa kusoo dhisatay ee dhibkaa usoo martay inaan inta loo soo diro cagaf si yar laysaga mariyo xaq maaha not fair absolutely weliba hadday sekeda ahaan lahayd dhan oo uu jiray haa waxa la yidhi gurigaaga wadada ku dhamaatay guriga hadday ku dhamaanaysa halkaa jooga maxaa guriga keenay maxaa loo dumiyey dhamaatayba oo gurigiina ka dumisay wadadiina dhamaatay wadadii xitaa ma sii socoto wadda dhaafaysa inantii maaha oo leeyahay wadadaasi heble tegaysaa maaha inta ay ka hadashayna ee ilaa ay wasiirkii howlaha guud ee Cabdullaahi Abkor la hadlaysay ama ay ka sheekaysana dee waa waqti dheer oo 2 bilood qaatay waxaad dadka nacsiinaysaan dalka waxaad dadka nacsiinaysaan wax dhiska waxaad dadka nacsiinaysaan nolosha gurigeedii ay dhisatay ee xooggeeda kusoo dhisatay ee aanay xoolo xaaraana ka keeninin ee aan ogahay dadka qurbaha jooga dhibka uu ku dhiso guryaha ama uu ku haysto ayaad isaga timaadeen waxaad leedihiin waanu duminaynaa markaad dadka guryaha ka duminaysaan ee wax dhisaysaan ee wadooyin samaynaysaan adduunku dee dadka lacagtooda buu celiyaa lacagtii meeshan qofkani gurigiisa wixii uu ku bedelan lahaa ilaahumay sadaqada haato inta aan hadlaynay laga dumiyey aan xoolana haysan ee dulman baa ciidaa ka badan ee aanba awoodinba inay ku hadlaan makarafoonka soo iibsadaan gurigiina layaga waddaa martee la jiiray ayaa ka badan ciiddaa ilaahay intaa uga cabsataan ummadda dadkiinan mas-uulka looga dhigayo qabri yar oo madow oo mitira baa idinka ka dambeeya wax dhisa laakiin si xaqa u dhisa wax hagaajiya laakiin si xaqa u hagaajiya qof baad gurigiisii dumiseen dabadeedna waxaad diraysaan siduu ku keenana ilaahay baa og waddaa kugu dhamaatay waddadu haddayba dhamaatay maxaa gurigeeda dumiyey maayo waddadu guriga ma soo gaadhayso qof wali wuxuu leeyahay guriga soo gaadhaysaa sababta loogu soo jarmaadiyay cagafta waa maxay miyaan khalad ahayn inantaa dulmi baa laga galay oo safiya dulmi baa ka gasheen reer Somaliland reer Booramo ha nagu dirina dadka oo dadka ha isku dirina oo dadka nacsiinina dalka nacsiinina dadka oo ha ka dhigina dadkii dalkii necb waa la nacay anigaasaa nici lahaa beerdii sheegi maayo aniga maanta halkaas safiya hadan taagana wallahi waa nici lahaa dibna igu soo qodeen waliba iyadu waaba gabar dul badan wallahi billahi tallahi been idii sheegi maayo haddii taas igu dhici lahayd qaar baa meyd ahaan lahaa ama aan dhagax ku dilo ama aan qori usoo iibsado ama aan wuxuun ku sameeyo waa khasab bay ahaan lahayd siday ku dhacdaa gurigeygii oon kusoo dhibaatooday bilaash ku dumiya dee ma soconayso looma qiimayn waxba lama siin xaal lama marin lama wacyigelin ahaan lagagama dhaadhicin haye dadka wacyigeliya waxaan u sheega lacagtoodii u celiya haddii aydan lacag haysan oo aan dowladda hoose iyo dowladda dhexeba aanay lacag haysanin dadka guryahooda u daaya buulashooda u daaya ilaa guryihiinni baan gurigaan magaaladaad qurxinaysid dee aniga hayga bilaabine qurxiyo ii celi waxaygii dhulla isii meel dejiya qofka gaara
dhul bedel u sameeya waa kaa dhulkaagii halkaasaa lagu calaamadiyey halkaasaa wadadii martay halkaasaa la hagaajiyey halkaa deg lacagtaadii waa taa meeshaa doonto ka qaaday misaa guriga kaaga baxay qiimihii waraaqihii la kala siistay wixii keen waa lagu siiyey kala qaata wasalaamu calaykum waa taa lacagtaada waanu kuu celinay meesha doonto guri ka doono laakiin guriga waanu duminaynaa without reason without hadal without macnaha sabab daro waa khalad in maadeerayaa dulmigana inaynu iska qabano xaq baynu leenaha laa ilaaha illa allah maxamed rasuulullah gabadhaana anigu waxaan aaminsanahay totaliba in lagu khaldamay inantaa gurigeeda la dumiyey ee bilaa riisanka lagu dumiyey ee aan wado dhaafta lagu dumin wadadu gurigeeda halka u daaya jambigiisaa soo gaadhay maxay samaynaysaa war wadda igu dhamaatay oo gurigaa gaanu duminayna dee caqli ma noqonayso jeex baanu la kacaynaa gurigaagii dam impossible tolow saas maaha wasiirka howlaha guudna waxaa leeyahay waa inuu shaqo ka qabtaa gabadhana xoolaheedii loo celiyaa waxaan la hagaajiyaa basarka iyo maamulku kama soo hadho dowladnimadu maamul kama soo hadhee maamul fiican waa in dowladdu la timaadaa oo ay dadkan ku hagto oo ninkii meel haystaa iyo odhanin ana amiir ana anta amiir saan doonaan ka yeelaya may way soconaysaan doonaan ka yeelaya maaha dadku miyaanay bolasi lahayn miyaydnaan lahayn system la raaco miyaan waxaan markii aad guryaha duminayseen waraaqo waxaa samaynayseen miyaydnaan ka lahayn guryaha la duminaya halkaasaa laga gelayaa saasaa la yeelayaa dadka waxaasaa lagu qancinayaa waxaasaa la siinayaa waxaasaa lagu hagaajinaya miyaydnaan lahayn ma dadku ila xoola maaha a meesha ku xidhateen oo idinka idin ku xidhane ma duni baa la arkay la jiro uun xurruf dam imise qof baa ka qalinaya waddada hayaan oo tuulo yana galbeedkaas ayana la isku haystay oo aan ugu ogaa oo reerna guryahooda iska jiidha cagaf dhulka inoo qurxiya hagaajiya ma xuma laakiin dadkan haddana xaqooda siiya qof kasta waxarta yaree dhulka somaliland joogta xaq baa idinku leedahay neefka xoolaha xaq buu ku leeyahay dhulka maaha dadkan inantii hadda waxaa ka dhaadhiciseen oo ay maskaxeeda ku haysataaba somaliland baa ku neceb oo waad u heesta cid haddii aynu kii gabay waa la xidhayaa ama gabay buu sameeyey ama war dadkani waa fanaanin shalay baa sahray ilay isku haysateen maxay wadani ugu heesta war dadkani waa fanaankuna xad male gabayaagu xad male macallinku xad male dhakhtarku xad male dadkani xad male wax allaala waxay fanaanay xad malaha meeshuu doonu u gabi karaa meeshuu doonu u heesi karaa meeshuu doonu ka waali karaa dadka daaya oo dadka ka daaya jeelkan aad ku xidhateen wixii siyaasaddeena ka soo horjeeda yes wixii siyaasad ahaan naga soo horjeeda haa laakiin qofaa siyaasad bayna ka soo horjeedin siyaasiyiinta maalin waxmar idinka marso sii dhuuqdhuuqle soo dhuuqdhuuqle markaasaa qof meel ka hadlay iyo ilma yaro wacyigelinta dowladuhu waxay ka qaataan shacabkooda ayay ka qaataan systemka waddanku u shaqaynayo waxay ogaadaan shicibku siduu ii arkaa shacabka markay arkaan wixii bay hagaajiyaan shacabku sheegay inay xun yihiin laakiin haddaad tirahdaan kii sheega waanu qabanaynaa kii meel ka soo heysa calayaro buluga sitaba calanka buluga dee kamaynu bixin wixii dabadaha ka qaada iyo wixii dabadaha kaga heesay yeelkooda inaga daaya mashaqaynu ku leenaha waddanka gudihiisaad mas-uul ka tahay waddanka dibadiisa mas-uul kama tihidii somaliland mas-uulka ma aha yurub iyo wixii laga sameynayo waxay mas-uul ka tahay waddankeeda gudihiisa wixii laga sameynayo qof fanaanana maba qabsan karoba qof fanaana maba qabsan kartaan fanaanka waa loo yeedhaa lacag baa la siiyaa qarash baa ku baxay hees baa loo sameeyaa heesta dheebwaan baa soo sameeyey wuu gudbiyaa wuxuu yidhaa wakaa heestaa qaad noo qaad waay hebuu qaaday isaguna waa fanaan maanta haddii laga jigjiga tado iisoo gabay waanu gabayaa na ammaan waanu ammaanaynaa simple stand inanta waddanka ha nacsiinina oo dadka waddanka ha nacsiinina oo dadka dalka ha nacsiinina guri bay ka dhistay 100,000 iyo something ay ku sheegaysay miyay iman lahayd ba soo xamar kamay dhisateen hadday xamar doonayso waddankeeday ku dhaltay weeye marka waxa maaha saas fair maaha tolow fair maaha saas inantana gurigeeda loo qiimeeyo loo hagaajiyo loo celiyo bilaa calaykum waxaana hana la xaarsiiyo soomaalida dina ka daaya ninkana daba wadaan ee isaguna ilaahay u siciiday dhulkiisa maraya ee aad ku khasbaysaan marwa cabdi cajoon bay soo qaadayaan iyadoo kacday isku dhufanayaan waa khalad weeye waxaas waa khalad
inankan iyo inantan way kala calaf qaadeen wixii ilaahay u kala qoray way wixii ilaahay u kala ways yidhaahdeen taasi way dhamaatay sheekadaasi hadda un rimaanba wadaan waa wareer marka aad baan idin salaamayaa ilaahayna barakeeyo waddankeena ilaahay inoo barakeeyo madaxdeena ilaahay inoo hagaajiyo dadkeena ilaahay isu sakhiro isaga weyno waaxidaha ilaahay isu kan sakhiro walmada reero wanaaga ka shaqeeya oo xumaanta ka shaqeynina billaah calayk wanaaga ka shaqeeya wanaagu waa muhiim daacadnimadu waa muhiim dad isu soo dhaweyntu waa muhiim waa sida aynu ku naaloonay ku caanamaalay weeye ee wanaagaa ku joognay 30 sanadood nabadda ku nahay weeye isu soo dhaweyn iskaashi iswalaalayn aad iyo aadna waa idin salaamayaa miyaan ku dheereeyay hadalka aad baan idin salaamayaa asalaamu calaykum